soo dhawaad xawe soo dhawaad Cuatro conoce. سورو سلام لبنتين أنا سلام يا صاحبي سورو لبنتين أنا سورو لا ولا يسن هذا سلو مقرضة لما سلو هذا وشيء وبلا شيء سلو هذا أنا سلو عاوز شنو؟ شرقري بليز شنو سفين فرماتشي دلاي قال يا ضيع العيب والله يا شنو ألقى صور كذا يوم فرح معلم فرماتشي دلاي هالسوية فرماتشي دلاي لا يحمل نقول لها أنا سلعي شنو أقصام يا أقصام يا قدومي أنا قرح وأربقول كي نوى نولو بشرقرية بالمالو تنا تشابني أبين كي قال لي شنو أبو مصر شنو هذا عليك وراء كرنين في عم بطل شنو الشركة جيل أنا وراء الله إن شاء الله جيل أنا وراء الله مستقبلك
قولي سالي مراكب أنت سميني بريق مريان بوش أودا بالحيطان يا دليلتي تريبي سوطني برباو صبح هذا ما تجي قروا مركب لقرا يا السما خلاص تقولون بالك لك لي ولا مات تلاقي صحاب علم يسلو يا شركة رئيسان اسكت يا شركة رئيسان ولا ما ألف شو ولا فرن لما سوق لما أنت ملا ما أنت بوزبولا تو ما يرب بوزبولا إيه هذا هو شطران كناري قوم كستوى بيج كاغا بس هاي انت اي سمايه قوم كستوى بيج كاغا كتور ولا لك نبدا الصوماليين نقاسيه وعلى سكاسيه على شغله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا دمان مد الصوماليات ميل كستو تشوفتان سلامة الإسلام كايزكو السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن ويا أي وقت وايدين وعناضو دمانتين مد الصوماليات إن عدسي كوبات وين ضغط الشرقريستان مركور الشرقرية برنامج حساسية أو حقيقة أو نبأ وحكينا أيام كارلنا إن مد الصوماليين يوجدنا وواجب إن تذكر أنت عقل غير له أما قانت online أما خبرة السياسة online لما رينا بابنا يو أيام حرمنا بل إن عندين افتيمنا سيدا يوحس عدان دنت اللي قال لي هاي ودد الله الصعداء صدوا فاهمي هذا كله على كل صدوا ودد الله الصعداء تشويش كدت كله غفريو إن حدينه دي بيردين عليو وعنو صام الري إن اختيك للدون أيانو صام الري إن اختيارك للدون ودن كانوا وحقبت أيا كسعودي هرمر بها كسعودي وعد مقليسين ودمada deriska ciidanka Soomaaliya awoodooda ka cabaadaya bayloodada la soo tababaray ka cabaadaya technical farmaajo soo dejinayo ka cabaadaya ciidanka dhisanay dawladda Soomaaliya een tashwiishkan markaa socda hadda socdaay waa mid campaign laga dhiganayo oo la rabo farmaajo in lagu ceebeeyo kaliya weyn يا وعلى الوايستانا وحكلا ماها أن أرنتا الوايستانا وحسوت شيدين يو سو قرية دولة الإمارات محمد بن زايد نينك اللي هذا ابن اليهود يقول كياتي أيا سو قرية وأنا تقرأني سا وقت قارة كامبين كأما دورة شو دتكو أنت بدن أن ما هي حسوي حساب بندقو هذا الشيخ محمود ما هي وحي حساب بندقو الشيخ شريف ما هيو إنا عبد الشكور ما هيو قف وحسو قبطو وحشان كلا يمجتو قف كستاني إستاقا يادين بكل جيران بل مالي رو قام على كتو سيار إنا ماشان موادنمو يو الصومالنمو أولين oo muwaadiniinta wanaagan laga shaqeynay xitaatii macaarad leeyahay waxa ogaataan diyaaradaha Kenya garaacaya 24 saac gobolka Gedo taangiyada garaacaya madaafiicda goobta gobolka Gedo la dhacayo caruurta shacabka la xasuuqayo xoolaha iyo geela la leynayo beeraha la gubayo never ever laga ma hadli karayo because dadkii soo dirsaday ayaa dadkan garaacayo dhulkan dadkan gubaya oo dilaya
iyadoo danta laga leeyahay tahay gobolka dadka jooga in la xabsi geliyo la handado la garaaco laga kaxeeyo gobolku bannaan noqdo intaas ayaa Kenya ay danteedu leedahay laakiin qoynano inuu xasan muwaadinimu ku jirin garta lagama hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed inta laga qaaday dhowrka kun ee laga qaaday muqdisho laga qaaday la geeyay Sacuudiga lagama hadlayo gabdhaha haddaan dib ugu noqono gabdhaha waxa lagu soo xushay gabadhu inay 18 jir tahay 22 jir 18 jir tahay 2 mitir tahay ugu yaraan mitir 80 tahay dhax yar leedahay fircooni aynay sunni tahay oo gabadhaas aan gudnayno sunni tahay horta dadka gabdhaha shaqada loo qaaday gabdhihii waxaynu soo dhignaa aynu aragnaa iyagoo la garaacayo iyagoo la kufsanayo aynu aragnaa gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed miyaanay xaq siman lahayn oo qofkii la dulmo aan laga hadli karayn madaxdeena aan ka hadli karayn jawaabtu waa maya gabadh dan lagama le waana hooyadiina dhashay taynta aynu soo leekaysan wayaan macallinkii dunida wayaan gabdhaha markaas Sacuudiga la geeyay nolosha ay ku jiraanna waan garan karnaa ninaan kaa naxayn oon kula walaalahayn wuxuu kula garanayaa jirin adiga lagu keeno lagu adoonhaan lagu geeyo wuxuu ku sameeyay garanaysan waxaan ma dhawad wareysanayay gabadh Sacuudiga joogta ayaan Facebook kala hadlay gabadhaasi guri bay joogtaa guriga ay joogto waxa ku nool 8 dhalinyaro ku nool waxa ku nool aabahood baa ku nool waxa ku nool qaraabo kale gabadhaasi waxay sheegtay meeshii lagu arkay in lagu qabsanayo madbaxa qofkii soo gaadha nin cafiya jiro la farxmanayo marka gabdhahaasi cadaabkii dunida horta way mareen dhibaato nooc walbaana way gaadhay ilaahay bay laakiin leeyahay qofka hadduu ilaahay leeyahay looma dayriyo marka wiilasha yaryar la idiin sheegayo la leeyahay Eritrea la geeyay wiilasha Eritrea waa la geeyay waa sax halkay joogaan wiilashaasi weeyaan marka maxay qabanayaan maxaa meesha loo geeyay meesha waxa loo geeyay in la soo baro ciidanimada marka tababarka ciidanku dhamaadana la baro technician ay ku shaqo tago ku dagaalamo askarigu ama inuu taangi wado ama inuu markab kaxeeyo ama madfac inuu rido ama diyaarad inuu wado ama miinaysta inuu noqdo ama baabuurka inuu kaxeeyo ama qoryaha noocyada kala duwan ku dagaalamo tababarkii ciidanku sanad ka hor buu dhamaaday tababarkii wajigiisii labaad baa la galay kii saddexaad baa la galay wajigii afraad ee hadda lagu kala baxay ayaa socda wajigii afraad ee hadda lagu kala baxay ayaa socda because qofka haddii traininka socodka la bara keliya si loo laafyoodo iyo dabka si loo rido waxa muuna baran mid waa in madfac la baro mid waa in taangiga la baro mid waa in jiibka la baro mid waa in miinada si loo dhigo la baro mid waa inuu noqdo mid taangiga kaxeeya mid waa inuu taliye jiib noqdo mid waa inuu markabka wado mid waa inuu electrician ka shaqeeyo mid waa inuu ka shaqeeyo isgaadhsiinta tacliintii ciidanka oo dhammaystiran baa meesha loogu wadaa horta Soomaaliya ogaada haddaba waxaanu soo maray kii oo la leeyahay waxaan ka soo raacnay Addis Ababa ayaan markab ka soo raacnay meetaa waxa ka horeysay xeradaan ka soo baxnayo markaan xeradii ka soo baxnay askar baan aragtayo askartii waxaan iska dhignay dhagax ma sha Allah tabarakallah dhagax bal insaankan dhagaxa iska dhigayo isweydiya waxay ku leeyihiin xeradii markaan ka soo baxnay kaartadeena la arkay tooshkina lagu shiday niman meel cunto ku cunaya waa habeen cunto meel ku cunaya miduu ku leeyahay waxa iska dhigay geed tababarka la soo siiyay tababar salaama geed ayaan iska dhigay midna dhagax baan iska dhigay buu leeyahay qaybta kale waxay leeyihiin ciidanka meesha joogay tababarkii uu dhamaaday xerad dagaal lama geynine lacagtii lagu tababaray baa dawladda laga haystaayo way raamaday bal markaa qofka Soomaaliga ee dhageysanaya ama dhageysan doono isweydii wadan intuu dad qaabilay xiri u furay boodhana ay seexdaan u sameeyay ayaa dadkii rahmaadaad u haysta bal isweydiya siyaamayso markaa bal Eritrea hoteelada nimanku may deganayeen mise xariiq ciidan bay deganayeen bal dadkan Soomaalida la jaawareerinaya raggan iyo dumarkan la jaawareerinaya beenta loo sheegayo ogaada fashilaadda ugu horeysa taaween dowladda Eritrea Soomaaliya heshiis bay kala saxdeen dowlad lagu la caawiyo iyadoo abaalkii loo galay gudaysay xorriyaddii la xoreeyay Soomaaliya xoreysay la gudayo ilaa 70kii laga soo bilaabo la caawinayay waajibkii intii loo qabtay in la bay qabanaysa boqolaal kun oo jabadii Eritrea Soomaaliya lagu tababari jiray boqolaal kun oo jabadii Eritreanka ayaa lagu tababari jiray Soomaaliya awood ciidan bay yeesheen dhulkooda u xoreysteen waajibkooda gudanayaan marka waa saxan ku gud intii loo qabtay in la midaba horta qabanayaan
ummadda Soomaaliyeed noo cadowgataan waxa ka jira ma jiraan adduunkana kama dhacda askari waddan kale la geeyo oo la tababaraya raamad loo haysta maad maqashan Turki baa dad raamad loo haysta marka ololay campaign-ka ayaa wuxuu ka galay in la ururiyo fadeexada madaxweyne farmaajo ee dowladda farmaajo oo shakhsi ahaan waliba loo ataago because dowladdu dirajooyin bay leedahay kala sareeya biladan marka ciidanka wax laga sheegay in wasiirka gaashaandhigga la weeraro ee sharciga caalamka ee naqaana ama dunida xorta ku noolahay haddii ciidanka qalad laga arko qofka la weerarayo waa wasiirka gaashaandhigga qofka wax laga sheegay ee la weeraray adduunka wax weeye sharciga caalamka lagu dhaqmo wasaaradda gaashaandhigga wasiir baa maamula farmaajo ma maamulo wasaaradda cadaaladdu wasiir bay leedahay wasaaradda arrimaha gudaha wasiir bay leedahay ciidamadu taliyaal bay leeyihiin halkii ugu hooseysay askarigii inta laga soo carro dowladdii laga soo booday baa farmaajo la tagay wasaarad gaashaandhig lama soo marin taliya ciidan lama soo marin hoggaanka ciidanka lama soo marin brotokoolka ciidanka lama soo marin taliyaasha ciidamada lama soo marin hoggaanka ciidan lama soo marin toos marka qofka caqliga ilaahay siiyey caqligiisu ama reer baadiya ha noqdo ama reer miya reer magaal ha noqdo wuxuu doona ha noqdo ama jaahil ha noqdo ama ha noqdo qof aqoon leh waxaad halkaa ka garan kartaa in la ataagayo doorasho sanduuqa lagu codaynayo sanduuqa lagu codaynayo ayaad moodaa in lagu socdo isaga in la garaacayaad moodaa dhagxanta waxaa lala dhacayaa markaa waa sanduuqii maaha farmaajo intaa fahma marka waxaan leenahay kuwan dhawaaqayow dadkan aad soo ururiseenna waan garanaynaa islaantan ooyeysaa haddaad garanaysaan oo aad fiidyadii hore facebooka lasoo dhigi jira eegtaan islaantan ooyeysa waad garanaysaan maanta waxaan arkaynaa xasan weli oo gaadhiga u saaran xasan weli waa taqaanaa ninka reer muqdisho ee nabadii nolol islaantan ooyeysaa xasan weli bay u saaran tahay gaadhiga maanta waxay leedahay wuxuu leeyahay naashan iyo 20 jir baa tahay wiilkan 20 jirkeed dhashay ee kamaq waa naagta ooyeysa wiilkan 20 jirkeed dhashay xaggoormaad dhashay buu tahay adaaba shaniya ayaanay caalam sano walaana shaqeeyay xasan weli wuxuu leeyahay inaad dhegeystayn kala mooyay facebooka saaka uu gabadha soo galiyay gabadh kale adiga ayaa 25 jir ah wiilka elektariga kaaga maqan muxuu yahay waa sheekada aad ka maskaxda uga deglaaween gabadha waxa ku jawaabtay caruur baan leeyahay caruurteeda aniga way yaryariin laakiin biilkooda soo saaraya waa sax way saxantay inay ooydo waa waajib inay isqaawisana waa waajib qof muqdisho ku nool ama Soomaaliya ku nool fiqiira oo aan la qabin oo caruur haysata iyada ceebeen mayno waxaan maqlaynaa dad wax ka sheegaya aflagaadeynaya laakiin gabadhaasi waxay tidhi anugu caruur baan leeyahay ninna malihi cidi biilisana malihi wiilka caruurteydina way yaryaryihiin markaa isweydiiya gabadha maanta ooyeysa le wiil 20 jir iga maqan ee ooyeysay waa 25 jir dadeedu waraa sheergalay nacla shida ku yaasha sheerkii malcab u noqday gabadhaasi way saxan tahay labada goorba way saxan tahay marka runta loo sheegana runta la weydiiyo runta sheegaysa marka been sheeg leedaana beenta sheegaysa marka lacagtuna waa qaadasho runtuna waa sheegitaan way cadays waxay tiri anigu ma dhali karo wiil 20 jir ana 25 jir bilmatal haday dhashay gabadhaasi waxaynu oran karaa 5 sano jirtay neefka geela ayaa 5 sano ku dhalaa laakiin dadku kuma dhalaan baa leedika yidhi dadku 5 jir kuma dhalaan 10 jirna kuma dhalaan inta aanad barataan waa waajib dadkan aqliga digaagu ku jiroona inta aanad ogaataan waa waajib midna sano gabadhaasi markaa waa 25 jir wiilka ka maqanina ma sha Allah waa 20 jir markaa imisa jir bay ahayd markay wiilka dhashay gabadha laba darale haddaad eegtaan banaanbixiina cabshakuurna way daba socotay way daba socotay maalintii ayaantii jilbaha lagu soconayay qayb bay ka ahayd dadkii jilbaha ku soconayay jilbo mulxeelna way ku jirtay iyadu markaa gabadhaasi run bay sheegtay xayaakumullah waan leenahay yaana la aflagaadaynin yaan waxba laga sheegin because qofku hadduu gaajoodo dee diintiisu iibsanaya wax kale iska dhaafaa diintiisu xitaa iibsanaya markaa waxaad kaga qanacdaan beenta xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif ay dani ay soo dhoodhoobayaan waa inta waxaa kaleynu soo aragnay nin meel fadhiyo 1 daqiiqo gudahood 2 aabba kala sheeganaya 2 awood sheeganaya ayaynu soo marray waxaynu soo marray doon inta laga soo raaco markab inta laga soo raaco Addis Ababa laga soo raaco oo harar la soo maro jigjiga la soo galo oo marka xeebaha jigjiga ay soo galaan ciidamada ilaalada xeebaha ee Soomaali State ciidanka Mustafa Cagjar ay qabanayaan doontii oo sabaynayso shidaalkii ka go'ay jigjiga duleedkeeda ay sabaynayaan ciidamada liyu booliska ciidanka badda Soomaali State ama Soomaali galbeed
ciidamadaasi waxaan leenahay Mustafa Cagjar aad baad u mahadsantihiin shidaal bay noogu soo shubeen bal ereyga aniga hadda iga degileen maskaxeeda ka degila waxa weeyaan ciidamada xeebaha ilaalada gobolkaas caasimada Jigjiga ayaana helayoo iyagana badbaadiyayoo cuntayna siiyeenoo shidaal bay noogu soo shubeenoo markabkii iyo doontii sidii bay ku soo baxeenoo garow waan ku soo xidhanay war aabeed wastaday Soomaalidu dhib badan marka halka wadeer baa ka soo baxday waxaan leenahay wiilashii intay taariibaan Soomaaliya ka soo taariibaan Hargeysa yimaadaan magafu halka wajaale intuu ka galiya Jigjiga lee galiya baabuurta lagu qaadi jiray dee markabka yar soo raacay markabkan garow ka soo baxaya samay manaya soo raaco halka ka gala Suudaan ka gala maxaad ka doonaysaa Eritrea adduunka marka waxaan leenahay adduunka baawos maalinay adduunka baawos marka anigu waxaan leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud Ibrahim Salow waxaan leenahay marka nimanka gaangistirada Muqdisho fadhiya ceebta iyo calaal ka soo hadhay wax kasta isku day xumaana sameeyo war xilka Ilaahay baa bixiyaa leeyahay xilka waliba nimankiina reer Muqdisho xilka Ilaahay baa bixiyaa leeyahay xilka Ilaahay baa bixiya xasan oo adoo taagan oo indhaha gushayn oo lacag haysta oo baarlamaankii iibsaday dhamaantood mid kasta $20,000 soo siiyo kaasha mid kasta xilo magacaab u ballan qaaday ayaa ayar farmaajo loogu riday باكسرين حسنا مركا عيارتي أتصور مرت عيار كلا أكو درسني أنا نايس عابين أنا نايس فضيحتين أنا نقول الشيخ شريف كان سوى تاجن أنا عبد الرشيد كان يعرف شكور كان سوى تاجن إيش كلهم كعونها نقولين أن تذكر الشعب كانت بنت وشيء سنقف شعب بنت مالي ما دمع عضينا وتاني واديدين هذا حتى والله إذا ورانا نوي أنا نوي ونوع عضيا مقولش نوع عضيا فرد مليون نوع عضيا إذن كاديدي وان فوضون مانكي إذن كاديدي تيجي تبلين إذن كاديدي تنا ويدا عيسى قفك إلهي قريبان مدحونه ورطا نقول يقال لكن كان بين كين يونو نقنن بين يانو نقنن بين الله يسكدر يقوري لقاطة يانو نقنن موريان نما يدعف نما يانو نقنن نينك الرقي بروغرام بولي مادا ولغو دورتو بروغرام دورشا يوسو ميستا يسوو نفتيسا ويسوو يسكو بومبونينيو وناقيسا كشاكينيو ويحو قبانيو ويدادكو صو بندقا لكن فرماج هالكنو مريو تشاد بو نغا جوجيي حتى تشاد دو جوجي وان لو قلاه فرماج كاي علاقات كاينو غويو و كو دغدغي فرماج انو سعوديه راعي هيد فرماج انو امارات ور الصوماليه ودن خيره ويان عدي دونتان علاقات كاي غوينيان عدي دونان نويريان نو خرباناي هذا حسن وميد كادو سجوديسي فرماج كاي يلي مين انو نقف عيسى وسجود كاي يلي مينو صوماليا نو ودن خره هذا صدق كيس لو غميسنيين فرماج maanta ma ogola han buu leeyahay Soomaalinimo inuu Soomaaliya uu isugu la dheero qoorti inta lagtay marka wiilka wax isku hayo intaad boorn soo samaystaan TV-yada lacag siiya oo dad garameyntaad leeyarta u gadaan masawiradiina ku buufiya campaign samaysta oo ka sheekaya waxa dadku u qabanaysaan wadooyinka aad dhisaysan iyo badaha aad samaynaysan iyo webiyada aad samaynaysan iyo beeraha iyo diyaaradaha aad samaynaysan iyo horumarka wadanka aad la ducsantiin ninka wax isku hayo ka sheekay laakiin ka sheekaynina farmaajo dastuurku ma ogola naag labaad ma guursan karaan soo maray waxa soo maray farmaajo naag labaad ma guursan karo dastuurka ogolo madaxtooyada Soomaaliya hal naag uma ogashay uma iman karta ya waxa soo maray farmaajo waa mareexan waxa soo maray farmaajo naag labaad ma guursan karo dastuurka Soomaaliya ma ogola waayay waxa soo maray farmaajo waa mareexan farmaajo waa mareexan banaabaxaynu soo maray wax kasta waynu soo maray laakiin farmaajo aamuskaas ayuu ku dhamaynaya dad loo jawaabana ma tiin dad la tartami karana ma tiin dad wax qabsan karana ma tiin dad campaign gali karana ma tiin ya farmaajo hadii la yiraahdo xitaa tuula loo coday uu ogol yahay ummadda Soomaaliyeedna raali saas ay kaga tahay marka waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo hooyooyinka Soomaaliyeed u cadeynaynaa wiilashan tababarkiina way dhamaysteen Facebook-ga hadaad gashaanna waad arkaysaan أمر عشاكور وفتي حقيقة الرادين وعلماء سراكيل دولة الصومالية يقرأ مدي مدولة تجي مركي أي تجين أن وطن كاسية اللي تري تجينا وعلى بالله عيدمدي تقال كما قيب قالينه ها العقبة الدولة اللي تري كل هذا هيو تذكير رحمت بالله استشانتي يكون شانتي بقول مال بالله يا اللي تري ويدي دين دولة سوقاته
عرفت على مرقي بندس كيف وينين على حد قوله على حد وصفه سؤال واحد نقول هو سؤال القول دقيق مركز الشركات فشلتي دولتي قرمدي مدوب إسرائيل إذا ما دي حريو دي لتغي عندنا وحلا سودا شيء ولا لا هاي ويلش الدجال لما جينون الدجال كم تشيرانه ويلشوا وين رامدين ومركي لتغي سراكيل دولة قصع عليهم ملتري قصع عليهم يقولها وزير هذا قرمدي مدوب عفيز حقوق الإنسان كا أيات توست صدق الشك فيسبوك بالبوق ده وهذا كساني ولا تجي عينك ولا تجي عينك يصير كل حتوان هلا وانا لو صدري وانا صدقني مركا شكل واحد مريزا عينك دجال مركا روح مريز الدجال بيك قيب قالينو هالكاس يكون دمادين قيب باصو عرفتيو مركي لا ركي دغح بين نقدين دغح قف لازم دغح دغح بان اسكا دغنايو توبركنا لسي خطر بو دغح بان اسكا دغنو جيد بان اسكا دغنو صعب نقولنيو اور بان نقولنيو ريبا نقولنيو تي ويصون ما تي نما نولي مصنبا قرمدي مدوبين لسوالس ورسي هذا حقوق الانسان قال ورسي مدوق افريقيا جامعات عربت قرمدي مدوبين ماشي ولا تي لقي ونبض قبا او شافكو انت ودا ليغياي او اد قروخنا يابتو ديسن جيركود ديسميرو عسكري عادي او قف كستا او قاد كرايو شم قف نبرك كو قاد كرايو او الموضوع ادون بير قدو شافكو انت ودا ليغو دغح سر ربوت كو سو علق با لوغو تي رجي ونوع عسب اللوتري مركي اللوتري لو قال وعلى محا سمين هذا بنتي وفشلتها ويلنا مرد من انتقال عيدما قليله محاتا وعلى انا وين رمضينو ويلاش مدح فرش الله يستاهل لعق الله الرياك لعقت انا كان بين لو قال الربا اللي يراهدو لعق قف كستو سوماليا وبقول صادر قف كستو سوماليا شان كنو ويلو سوماليا بحنبره 20 مليون كليه الكتريه دونيساي lacagtii la soo ururiyo lacagtaas anaga ana loo soo dhiibo lacagta la soo ururiyo madowga maxaakiimta lacagtaas ha ururiyaan anu dadka la soo wacay baan kamid ah leeyahay warno campaign-ka noo sameeya aduguna dhaqaale yar keel anaguna dhaqaalaan keenana intaas sameeya qolal yar sameeya ha la ururo ya marka been fakatay Soomaalidu waxay tiraahdaa runimo gaadhay laakiin beentu daba yaroo la qabtay Soomaalidu waxay leedahay beentu daba yaroo la qabtay leedahay يا waxaad arkaysaan oo garanaya gabadh 20 jir ah gabadh 18 jir oo wiil 20 jir ka maqaya ya gabadh 20 jir oo wiil 20 jir ka maqaya bal salaam bal qaabka ay isku dhali karaan Soomaaliya noo sheegay gabadhuna waa 20 jir iyadu waa 20 jir ilaa wiilka dhashana waa 20 jir iyadu waa 15 jir wiilka dhashana waa 20 jir ilmuhu intuu hooyadii ka weynaan karaa waxaan maqli jiray ورانا شركة مريشلو وعن مقل جري هالحلال الصومالي وحيرن جتي هاشو نريبتو هالكي هو يدا دوغو وينتان لو شيغا لولن جري مركا يرن نريبتو هالكي هو يدا دوغو وينتان وما صومالي هالحلال الصومالي نريبتو ونريبتي دلاتي ايا هو يدا الميلا قار دوغو وين وبلبوشا مركا لك waxay ka diglaan gabar 15 sano jirta ayaa waxay dhashay wiil 20 jir oo eletri wiilkeedii jooga inuu nool yahay in kuunu dhantay gabadhaasi wiilka mooga marka intuuna isagu dhalay iyadu intana dhalay 5 sano ka hor buu jiray wiilkeedu bal Soomaalida marka aqliga caafimaadka qabta inta xashiishka cabtay qabriga cabtay iska daaya iyo inta danta la iska dhaafa laakiin qofka ay maqlaya caafimaad qaba maskaxda ka caafimaad qaba ee wax fahmayo hooyada oo 5 sano ka weeyaa ku dhalay haddii hooyada 5 sano ka weyn tahay adigu xageed yaa ku dhalay Soomaaliya وانا عيبها صومالي بين ما تقانو بيننا وين تقانا بيننا ما تقانو لكن عالم كله بروباغندا marka la sameeyo engineer loo geeya dad aqoon u leh dadka sida loo kaciyo dadka sida loo beer la xasuusto beenta loo sheego ayaa loo taga ya dadkaas ma khibradaas ma inta lacag la siiyay program dadka loo kicin kara loo sheego oo campaign-ka ninka la yiraahdo farmaajo kula dagaalami karo xaqiiqo yareg TV caalami ah eegsan laayeen ثورة نوعية كلا لسوق هذا لا تطلع وعيا لسوق هذا لا وتشتمن عيا لسوق هذا لا فاسد الجو الدوبي توتي يكود الجوجاي تيم دادير لبحي والله سمين كلا هو عادي إيش كعادي تفوتشوب ما سمين هذا ما سمين قف كان دونه فوتشوب ما كسمين لكن عسكري أو ده العقل السوسيال كسمين كلا ولا كلا ولو بين رنت ويرك
dad gacantani mid gacantani go'anta ila waay meesha waa laga waayay nin gacantani go'anta la duubo oo ila dagaalkii baan galoo baasuuka ay ugu dhaco way goday ya mid lugtu go'anta oo bir yar oo ku boodo loo dhiibo mid shafkan laga dhayo oo la yiraahdo toori ku dhacday ama dagaaladii Soomaalida galoo go'an mid ishan inta la duubo inta go'an mid ilka inta sidaateen aqli baa loo baahay mid nabar madaxa kaga yeelan dhiig oo ayaa loo baahay oo bir ku wada boodayo jiif isbitaal baa loo baahay la diyaariyo laakiin baadid baa ku fashalad xiraan ka soo dhacnayo ciidankii baan arkay ciidankii markuu arkana dhagax baa noqonay dhagax aroo daayir guleys ka socda marka la arka dhagax noqonaya marra geed noqonaya marra sac noqonaya marra noqonaya arin noqonaya marra doofaar noqonaya marra dameer baa iska dhigaya ya marka waxa leeyahay beenteeni way fashilantay propagandadina way fashilantay laba meelood oo gaaban baan idinku celinaya kaliya waxaad dhegaysateen wiilasha yaryar garooga jooga wiilka hadlaya hal daqiiqo gudahood iyadoo hal daqiiqo dhammaan buu leeyahay hebel baa la yidhahdaa saddex magac buu sheegayaa haddana wuxuu leeyahay waxaa la yidhahdaa hebel baa la yidhahdaa waa daqiiqad gudahood faado calay salaam soo dhawaada daqiiqad gudahood buu wiilkaasi wuxuu sheeganayaa laba magacoon islaam buu sheeganayaa magaciisa oo qaldan magac aabiyo oo qaldan iyo magac awowgo qaldan saddex magacoo kala noocuu daqiiqad sheeganayaa markaa taasi qanac weyn ugu filan tahay waxaa kaloo aynu soo aragnay gabadh 20 jir ah oo sawirkeeda aynu hayno oo ooyaysa haddana wiil 20 jir dhashay iyaduna waa 20 jir wiilkuna waa 20 jir wiilkay dhashay because afkeeda ka qiraysa waxay leedahay anigu 20 jir baan ahay markay banaanbaxa joogtana waxay leedahay wiilkaygu waa 20 jir marka goonida loo waraysanayna waxay leedahay war anigu waan baahanahay aabbe ciyaalka ii biiliye malihi ciyaal yareer baan haystaa ya wiilkayguna waa 5 jir wiilka 20 jirka anigu ma dhalay anigu lacag baan qaadanaya waxa la weydiinaya kale haddii nabadeena nolol lacag ku siisa ka waran anigu lacagta baan garanaya bay taagantay lacagta haddii $6 la ii soo shubo waan tagaya been hadaliga moosan Facebook gala gabadhaas waa gabadha ooyeysa waa gabadh banaanbaxyada ka qayb qaadata waa barakacayaashii weeyaan xasan weli laakiin wuxuu leeyahay deris baan muddo aan deris lahay buu leeyahay wuu garanaya iyadii abeedba su-aasha muhiimku weydiinaya hadda markaa waxa weeyaan adigaa 25 jir ahayd sideed wiilka ku dhashmay adoo 20 jir baa tule waan ku garanayaa deris baynu nahay sideed ku dhashay wiil anigu markaan sawirkaaga arkeen fideogii daawaday waan naxaye qaabkeed ku dhashay qof yarbaato waan ku garanayaa gurigaad ku dhalatay sheeg waxay leedahay anigu $6 baan u shaqo tagaa $6 iyo $2 baan tegayaa waana dhab oo de Facebook way ka jirtaa sirdiisu dhow qafaar oo salaam ku damay welcome brother ya waxay leedahay gabadhu waan shaqaysanayaa $6 qofkii istur waan u tegayaa qofkii $2 si waan u tegayaa Facebookana way ka jirtaa oo dhalinyarta Facebook waa wada shaqaale waa shaqaale dhalinyarta Facebook joogaan wax maskaxda xorka wax yar ba jira dhalinyarta wax yar ayaa jira waxa yarna waxa weyn cadow baa loo noqonayaa hadda wiilka Ayuub leeyahay maxaa loo weerarayaa maxaa kolba beenta looga sheegaya maxaa guskiisa looga sheegayaa waa nabad iyo nolol waa inta marka wiilka yar dhalinyarta yar ee carruurta kabtan Ayuub dadka weeraraya maxay u weerarayaan afkaartan uu watay aaminsanaanta uu aaminsan nabadii nolol iyo dawladda Soomaaliya lagu diraya bal ka warrama idinku markaa madaxweyne waxaan maqlaynaa nin weyn oo leh naag cadaan uu tagay war kabtan Ayuub haduu naag u tagay ma idinku idin tagaya hadaanu naag u tagin ama gabadhu nin ay u tagay loo tagay kale su'aal baad wadiina naagtana waa loo baneeyay ninkana waa loo baneeyaa dadka damiirkooda halkaas uu markaa maraya inta kabtan Ayuub fideero intaas laga soo qabtay qoorta in la yiraahdo naag jarmal uu tagay war raganimade hadduu naag cado indha buluuga loo tagay waa raganimo marka dad Soomaali tahay tusaale kabtan Ayuub inuu soo qaatanay ka hadlama doonayay bal qofka madaxweyne ummadu ka warramay qofka madaxweyne ummadu maxaa lagu sameeyay wiil inuu dhalinyaro 3 jir baa la dhibaataynayay oo la leeyahay naag buu la tuntay naaga u raaxeeyay la leeyahay waa dad Soomaaliyeed walaaltinimadu ka dhaxaysa weyn marka intaas inaad ogaataan waa waajib ciidankii Soomaaliyeed dhawaan way imanayaan doorashada la qaban doonana ciidamada ammaanka sugi doona taas weeyaan laakiin maxaa la oran doonaa bari wiilashani markay Soomaaliya ka tagayeen
niman cadcad bay ahaayeene hadda way soo madoobaadeen irbad baa lagu mudo wiilashu way bukaan baa ku xigta فعلا ورا شرقرية أفرت قفة كنت قفة تين تو ماكو شرقرية وأنا بسمال دور تلامس وقلبا نرجع الصومالي وحدين شينا إذا كي وعصون قلنا إن شاء الله بإذن الله الكريم دوان أي إيمانيان قبل قصة الصومالي أنا والجينيا قبل كجدنا قيم كم ذا أن أي تيجي دونان qaybo kaloo ciidankaani macadka ka midana wiigan baa la qaadayaa gobolka Gado jubbada dhexe labadaba ciidamo ayaa la geynayaa oo la ciidan doona insha Allah bismillaah kariim kaayana diyaarad ay leedahay dambe Soomaaliya ma dul mari doonto mana garaaci doonto marka saalay waxaan u jeedaa ciidamada cirka ciidamada kuwa dagaalka ka hadlaya diyaarad kale ka hadli maayo reer Gadana waxaan leenahay waad samirteen tababarka ay ciidamadu ku maqayiin ila tireen mid la mid ah ku jirtaan baa la reer Gado ciidanku markuu tababarka qaadanayo dhibaato la soo kulmaa bilaa hore wuu xanuunsanayaa wuu daciifayaa tababarka ku adkaanaya marka dambana wuu soo raysanaya sida qof marka isboortiga oo bilaabo kale teamka tagtaan ama isboortiga qof uu samaynayo ama orodka aad baranayso ama traininka chief disciplineka qof marka uu baranayo caqabad baa ka hor imanaysa badan dadka inta badan ee qofka isboortiga baa garanaya caqabado badan ayaa ka hor imanaya qofka muruqyada xanuunaya dhabarka ku xanuunaya lugaha ku xanuunaya gacmaha qofka askarigiina waa nooca caqabado badan way la kulmeen oo qofkii ciidan oo ba garanaya dee uu la kulmaya askarigu ama dhulkiisa lagu tababaraa ama meel kaas lagu tababaraa because qofkan waxa loo sameeyaa jirkiisina waa la dhisayaa maskaxiyan baa loo dhisayaa gaajada inuu adkaysta la barayaa haraadka inuu adkaysta la barayaa dhaxad waxa loo baahan yahay inuu askarigu qabowga iyo kuleylku isugu mid noqdaan waxa la barayaa oo naftiisa la barayaa inuu gaajada ku shaqeyn karo dhinankana ku shaqeyn karo waxa la barayaa inuu roobka ku shaqeyn karo cadceedana ku shaqeyn karo oo jilaa baa laga bixinayaa de jirkiisii aan dhisnayn baa laga bixinayaa marka reer Gadow idinkuna waad ku jirtaan tababarkii idinkuna waad dhamaysateen khibrad baad leedihiin gobolka ugu khibradda badan baa Soomaaliya maanta inaad tiinaysiinaya gobolka ugu khibradda badan leh inaad Soomaalida tiin oo ugu adkaysiga badan leh oo ugu gobsan baan maanta idin qiray Ilaahay ugu geeyay maanta waan idin qiray ya farmaajana wuu soo noqonayaa ninkii istilaya ninkii badda isku tuuraya ninkii sun cabaya ninkii sun isku mudayow inta ogaada xaqana iyo waaqacana waxa sheegi doona anigu ma sheegi doono farmaajana ma sheegi doono reer nabadan lama sheegi doonaan xaqa waaqa waxa sheegi doona warqadda yar baad aad akhrisan doontaan warqadda yar ee sanduuqa lagu ridayo ayaad fahmi doontaan eediina la iska wata laydin jawaabi maayo laydan caay maayo وعلى إنكم سمعين يا متشران شمال سودو ديبو سونن ما ذاك سمعنا بس ما ذكرنا هذا والد كعيات كورة شمال بالخشة هذا والد كعكشة كورة أنت كورة نمو هي أطلع على عيا كورة شمال بولو بالخشة سويت شمرك حكومة نقول سنة والد كورة أنت أفلق هذا أمنا عذره أنت أثر سما يا سكسودو كعاي منه لكن هو مركز القفل يعني وحكى الشكتات عيدو إن والد كا أو دنتين لا طاولة يا والد كا أما حرم كده حفل يلا نعذر يا وسرو عرفت لو حيران شمال بولو الله نعذر لو قف كيكو ربيه بلي ده مركز أخلاق حمد قريات كلاتي قريات هذا أخلاق حمد كلاتي يا ده كان حمدها مركز الصومالي أنت هنا لقيتان وواجب farmaajana wuu soo noqonayaa yaan la warwarin nafta khayr u sheega Soomaaliyana cageeda isku taagaysaa daba dhalifnimo dambana way dhamaatay wareerna waa dhamaaday dama isku dayn marka ay isku dayn ninka la yiraahdo Jamaal ha isku dayn waalidka inuu maalin loo aflagaaday loo caaya isku dayn adeerna ma garanayo ama ka garanay ha isku dayn waalidka in fagaara lagu nacdalo hooyada la nacdalo laga yaabo inay ay akhraaba jirto ama aabbaha isku dayn ya weeda oo qalan in loo maalaan loo caaya ama aabbaha isku dayn markaad fagaareed joogto waana sharaf badan yeelato marka wiilka Soomaaliyeed iyo gabadha Soomaaliyeed ay dhageysanayo isu diyaariya doorashadiina way soo socotaa campaign-keena uu bilaabmay badeeniina waa la xukumayaa insha Allah bismillaah kariim
waxa kale oo ka soo dhaafay tashiish waxay bilaabeen ay leeyihiin farmaajo si uu soo noqdo bii uu ogolaaday 50-50 in badii loo kala goosto ayuu ogolaaday 50-50 taana waxba kama jiraan baa leeyahay saliiraad male saliiraad ay leedahay ma jirto xuduudda Soomaaliya waxay ku taalaa Nairobi dowladda Nairobi ku taalaa ama diida ama yeela ama dhaca xuduudda Soomaaliya Nairobi u jirtaa 30 kilomitir ya maalintan awood yar yeelanana maalin alla maalinta aan Chance sirweelana weyn karbaashina aniga adiga ma dirisaa ninka leeyahay Jamaalow haddaan dirisnaay wallahi inaad wax iga sheegtaan bilaad Allah haddaan dirisnaay garaad baa yidhi lahayd maalin alla maalinta awood yeelana waa lagu dirdirinayaa gabdhaha Soomaaliyeed baa qoryaha loo dhiibaya faadimo gulay soo dhawaad soo saxiix soo ورام سلام سلو سعيدو سليمان يفهم سلو نيروبي نعل كويا المقع إذا كحرقة درس الناس كنافه يا إلى أين يمجيو أنا أقولي وطال لقيا ما ينتقو شباب أنا أقولي وطال ينتقو لقيا ما أسكريه يا مركا وقاله ويلك كل فكرة يا الناس كنا دعينا يا يسوي بدي بحيي isagu dhulkii saxeexay waa ila cabshakuur baa ka hadlaya shaqtani baa badii ka hadlaya cadan sheekh maxamed baa ka hadlaya ayaa waxay leeyihiin waa la heshiiyeyo farmaajo waxay ku heshiiyeen ugu kayaatu badii in la qaybsado 50-50 loo kala goosto konton warbiyaan farmaajo male xasan oo adiguna maliid ummad Soomaaliyeed baa iskale waa dhaxalkii ummad dhalinyarta Soomaaliyeed baa iskale nin bixin karayaana ma jiro nin ku dhiiranayaana ma jiro farmaajona maxkamadaas uu keenay lacag buu ku bixiyay dhowr boqol oo kun oo la $380,000 oo dollar buu ku bixiyay $380,000 oo dollar baa ku baxaysa khubradaas iyo looyarada special ka ah farmaajo uu keenay $380 buu qaadanaya جماله فرماتش ما الكير ولا المها يا عشان شباب سلو فرماتش هو مدحوني الصومالي ولا البل ير ما لو قلت المامي كرو الكيري الكوين منه ما لو قلت المامي كرو هو مدحوني الصومالي انت هذا برتسكتي يا هذه قال لك على قول فرماتش هو مرحان بلقانا دعي يا وقاعدين بقول نعيا لقانا دعي صباح غير عبد الله نعيا وقاعدين لقانا دعي يا ان kuwii dadkeena gadanayeen waxa laga dhaadhiciyay maarbaanna oo daawac kabla laxbal isku laga dhaadhicay sama jabal kuwii ogaadeen inta soo afduubaan keenay jigjigeynay iib keenay waxa laga dhaadhiciyay kabla lax daarood ba isku tiin farmaajana waxa laga dhaadhiciyay waa cadow yaa sama ya waxa kama jiraan la fi ogaadeen ku garow way ku dhamaadeen boosaas ay ku dhamaadeen qarniga Hargeysa ku dhamaadeen wiilkaasow ya marka فرولة واكن كان عسدي ولا فرولة وتاجي عروا كاسة وحكا شجع ورانو ما يمكن تعالى إذا شو ذاك تبدل فكاي وقالن كتبدل فكان على أبوك ما لا لوضع على ناي هذا شو ذاك تنا على كويل بلا تبدل فتات كيا مسدي هذا وقالن تبدل فتار على كويل بلا أنا ما كان تعالى هذا مريحان تبدل فتار على كويل بلا أنا ما كان تعالى كان شو ذاك كان مريحان كانوا قاعدين يا قال لك القصية كجريمة قال تعالى يا كشيخ خشت استودلف إلى أم إسكندر شو قام عيسى يسكون لقط أو قبيل كارين لقط على طول ما يتبدلف رجع هذه وحلا ترى يو رجع كان حسنا كوتشري عبد الله على قاسين على يركي صاحب كذا كم ذا فرالا كم ذا يا شوحة يا كم ذا وزير كاريمة جودة الصومالية فترة وهذا سوق القرية شوحة كم ذا هذا من دول سنة لكن إنه وقفك إن الدليل إن الدباتية وأول الكن قفك قبل إنه كفصة وأول الكن وانقعد سنة على ويار مصنع ذا يا برواجك قفنا إن قبل دين قبلنا ما إنه كفصنين عقدنا ما إنه هيو من إنه جا كو كنا شيء أروجين فرعيس له بركة حق على إذا كدوه حق على إذا كدوه reerku madow nimanka qabiilka tuurta ku wato waxba tarano
حق الله يدن قرنسي دولة الصومالية دلتنا بيش عبسمة دن ugu jirtaa Soomaalida kale wax dan yeena ugu jirin laakiin wiilka absame wiilka jilwa qama wiilka ogaadeen adaa lagu haystaa aba indha ka hoos adaa lagu haystaa wallahi bilaa talay wiilka uu halkaas iska fadhiya dhulkiisa intiisa yar waa haystaa kama jeertan intiisa yar waa haystaa laakiin ninka la gumaysanayay waa adiga wiilka kuumada sheeganayo waa adiga aba indha ka hoos ninka Itoobiya qaybeysta qaybna ka yaastay ya waa adiga asla wal sabarka maracaaga inta ku jirtaan tan kama leh iyagu halkaas ku jirayaan marka nin la haysto ayaa dirbaan wuxuu tumaya gumaysi shakhsi wada wardaayir guul hadan waxa noqdo anu wadanka jooda wax ka noqdo maxay inta waxba madoobe dartiibaan marka gumaysi kala u sii dooranayna oo gumaysi baan rabnaa tilmidiyo soo marka waxa ogaataan wiil absama wiilka absama dirbaanka tumaya ma ogaadana ma jidaaqow adiga gumaysigii uu maskaxaada la qabsatay oo sadrom xanuun kale sadrom qabri bayax baadanaya sadrom qabri bayax xanuun ka saadanaya ya because wala uu gumaystaa loo gumaysto walaalkaaga xagga loo gumaysto qaybna kaya gumaysto qaybna Itoobiya gumaysto baan intii xortaad ku soo horkacaya adeerkii baa meel gudoomiye ka hor madoobe uu tagaya wiilka madoobe dartii kaya uu tagarayo ama wiilka aan madoobe dartii uu tagarayo wadan kale oo imaaraad uu tagarayo madoobe uu tagaya ama uu bula uu dhimanaya laakiin qaran Soomaaliyeed xoog badan leh inuu dhismo oo laga cabsado oo xagga Itoobiya u dhirbaaxa oo xagga Kenya u dhirbaaxa oo xagga Yemen u dhirbaaxa oo dhulkeeni soo celiyo jamhuuriyadda Soomaaliya soo celiyo agaga isku joojiya tan bay ugu jirta waayo haddii dawladda jirtay garow inta laga soo qabtay wiilka ogaadeen ama wiilka jidaaqo lagu iibgeen taasna dawlad la'aanta ayaa keenaysa laakiin qaran Soomaaliyeed u dhisay qof Soomaaliya Hargeysana lagama qabteen oo Tigray looma dhibeen garow ee gaalkacayna lagama qabteen oo looma dhibeen because tigtiga calanka buluuga ayaa ka baban lahaa ya talxiisna aad ugu timaado labada bay noqon lahayd kaliya سارة جماعة هذو قبيل بدأ مسنتها هذو شباب مريض هذو غير بدأ هذو لف بدأ مسنتها أنا قرن صوماليات بكالله أنا بركة هذو ناق باطلية مريض هذو مطبخة يا كشة كذا علبة كرسو هذو على قارب أنا سريرة سيف عن أقول لك سكمل سارة وتاي يا سارة جماعة سريرة أنا سيف عنك أقول لك سال قارب أنت في عن هذو كرسو حاجة لما قارب هذا هذو قرينا قال ميس اللي بنا ميس أوكي ورشد هذو سيف عنه وش قيسه يا أنا أعتقد سلو مرجع ويلكاس كن فكرة يو كان هنا سبر برتانا كن فكرة يو ويلكا إمارات كي سبر برتانا يو جميسي كتشعلو لا يعمل يدو جميسي بعد ولي قام بدي كشرت أباي هو قام جميسي كشرت جميسي كان متقاني بوعي هذا قف ودول حرة كبر بارو ودول حرة كبر بارتو كبرتو ودول حرة كله لا حبوكرتا لكن ويلك عبسمة كي شوعي ويلك عبسمة كي شوعي من ما يقانن حرية واحد تايده ويعي قانن البعض يا دون سكو قرنيا مركا وحن عادي بو يدين كيدين إنما كنا كي يكون ولا إنما كنا يكون ولا عادي بو حالديه هذه عادي بكوي لكن ويلك بلوغ حرطة كل شيء على جاب بلوغ كواس برباري وقرنيا حرية قيمة لها marka anigu waxa talayga dhalinyarta afsame ama kuumade ama jida qamo ogaadano ninka madoobe taageerayo gumaysi baa taageeraysa xornimo ma taageeraysa farmaajo ninka ka hor imanayo gunni baa taageeraysa wallahi billahi talaa gunni baa taageeraysa xasan galad ka sheekeynaysan intuu joogay Puntland garaac baa ku socday gaalkaya ciidamada dawladda xitaa ka dagaalamay waxaynu garanaa wiilal mareexaano ciidanka Puntland isu dhiibaan garanayna shalay ma jarteen ka dhawaaqayo wiilashii mareexaan ee ku jiray ciidanka dalab markii xabada lagu bilaabay gaalkacay xagga show talaabeen xasan baa la waday reer Jubbaland taariikhdeenu ka soo maray xasan sheekh maxamed waad garanaysaan waxba xasayaan idin macaaleen Jubbaland ninka ka dhisi kara wanaagsan waa isaga ayuu ahaa madoobe waxaan moodayna qof bini aadam oo insaan moodayna xawayaan maanan moodin marka xasan
intuu joogay lacagtii waddanka soo gashay qaybna Jubbaland buu ku dhameeyay qaybna Puntland buu ku dhameeyay labadaas uu la dagaalamo marka wiilka Soomaaliyeed oo fikir waliba wiilka la haysta dhulkiisa gumayso ku jiro inaad xiroodo isku day inaad dhulkaaga xir ku maamulato isku day ama Soomaaliya ku soo biir ama dawlad gooniyo noqo laakiin waxaad ogaataa imaaraadna dan kuma wado Kenyana dan kuma wado dantaada laakiin fiil Soomaaliya laga wada farmaajo dantaada wada maanta wuxuu ku qasbay Itoobiya inay faragelin karin Soomaaliya Kenya inay faragelin karin Soomaaliya ayaa lagu qasbo qasab baa laga dhigay aqooyaankii Kenya oo dhan iyo dadkii khubradii analysis sameynaya waxay sheegeen Kenya inay iska celin kareen Soomaaliya loo joogsan kareen bay cadeeyeen waa khubradii ka faaloonaysa caalam ka faaloonaysa dhan baa cadeynay aniga ma hareyga daahir guleed ma mid daaroodna ma waa caalamku weyn haashig loo soo aqooyaankii Kenya cadeeyay farmaajada loo joogsan kareen hore waxa uu sheegay aqooyaanka Kenya dawladda Soomaaliya inay hal kun ciidanka cirka ay soo tabartay beeloodleeda kun marka qarankuna wuu dhismayaa khayr baa idin dhaafay dhamaantii waa islaamiga sii shargaraya war haasha soo dhow ala salaamada